السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقيرت يوتيوب باني سلامي عشركينا ما انتو عكو سابسن ياي سؤال كميدا داليادا او اي ويديي ويندوز 7 اسو استعمال ultimate ayaa wax kaga dhacday shaashada way ka madoobaatay marka sideen ugu saara ayuu yiri marka su'aashu waxay tahay sidan ayay shaashada kugu soo bixisaa windowga wuxuu ku leeyahay this copy of Windows is not genuine macnaha original ma ahan Windows 7 kaas marka sidee looga saaro way fududahay waxaad isticmaalaysaa meeshan ayaad ka soo download gareysanaysaa waxaan ku dhigaa description-ka ka soo download gareyso isla markiiba sidan ayaan ku soo noogu soo baxaa right click ayaan leenahay extract here ayaan leenahay markii maxaan sameynaynaa double click ayaan siinaynaa folderka waan fureynaa waxaa noo soo baxaya software-kan u isticmaalayno sidaan ugu saari lahayn waa kana remove what allah ayaa la dhahaa double click ku sii wuuna ku soo baxayaa marka sidaan ayuu kugu soo baxayaa waxa lagaga baahan inaad ku dhifatid remove akina ku dhifatid ayaa laga rabaa sida uu kugu soo baxo dhaqso isla markii marka remove ku dhifatidba marka aad remove wait marka ku dhifato wuxuu ku leeyahay rebooting ma sameeyaa waxa laga rabaa inaad yes kadibna aad reboot ku sameeysid marka waa intaas oo kaliya ayaa lagaga baahan yahay wax kale ma ahan marka insha Allah khayr ayaan idin rajaynayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khayran